بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهبين أي خميس سوق ليسو تاريخ الإسلام كنا أيتاشن يتوما كبش محرم أما بش كوبات سنة كن أفر بقول يا أفرتن يلا تاريخ الهجرة ووافقسان صدح ذا بش السجارات لبكون يلا بعتنك. وبرنامج قارة وإنه كويجي إنه الرمها قيسكا وإنه جمرتيه هاي فضيلة الشيخ محمد الشيخ عمر ديرير. برنامج كنت وصوحي إذا كجاي من إياه ساجدك أو رشاية كويا لا برتماها مجال هرجيسة. برنامج كعاوة مشايخ عاو حمرتويه هاي حرنتا بنايسا الرمها قيسكا كوما قعدير أما لقوا مجعابو جري السما. waxaanu barnaamijku diiradda saari doonaa arrimaha qoyska, horumarinta qoyska iyo su'aalo ku saabsan qoyska maxaa horumariya maxaa burburiya. Intaynaan su'aalaha ayna soo weydiiyeen dadka ku xidhan sida gaarka ugu xidhan xarunta guriga Samo, intaynaan su'aalahooda u gelin Sheekh Maxamed, qoys muslina maxaad ka odhan lahayd? Bismillah. Waxaa kollay xusid mudan qoyska muslimka ahi inuu yahay bulshada xabadihii labanka ahaa ee mujtamaca muslimku ka koobnaa wey. laxajeclo gaaruu mudan yahay markaa in aada loogu laxajeclaabo oo la ilaaliyo dhismihiisa. haddii ay tahay bulshada iyo haddii ay tahay labada qof ee isguursanaya iyo ehelkoodaba. sidaa daraaddeed ayaa ilaahay uu faray dadka hareera jooga dhallinyarada inay u guuriyaan iyo dadkii xaas u baahan. waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih. dadkaan xaaska lahayn u guuriya baa ilaahay wuli. haddii ay baahan yihiinna ilaahay baa kabi oo faqriga ka dulqaadi doona. waa dhiirigelin. nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu faray dhallinyarada kii awoodi karaya dhaqaale ahaan inuu guursado ha guursada buuri yaa macshara shabaabi man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj. laxajeclo uu ka qabo islaamku qoyska muslimka iyo jiritaankiisa ayuu aada uga hadlay xuquuqda labada qof ay isku leeyihiin, sida suuratu nisaa ilaahay uu ku cadcadeeyey subxaanahu wa tacaala. xaqa raggu leeyahay iyo xaqa xaasku uu leeyahay labadaba, iyo mid waliba doorka iyo kaalintu qaadanayo, iyo haddii ay kala tagaanba waxaa xuquuq ay yeelanaysa xaaskii. waxaa aada looga digay in lagu tacadiyo ama lagu xadgudbo dumarka, oo in fara badan jaahiliyadu ama dadkaan diinta lahayn ay ku xadgudbaan dumarka xaaska ah. markaa si loo wada noolaan karo oo labadii qof ay isu jeclaan karaan, wacaashiruuhunna bilmacruuf baa ilahay u leeyay, si wanaagsan ula dhaqma oo ka caamsan wixii la isa siin lahaa iyo dharkii iyo dhuunigii. haddii uu qofku isu taago inuu xaas burburiyana kaalintii shaydaanku u qaadanaya, oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu xusay shaydaanku inuu colaal badan ka soo diro subaxdii badweynta iyo meesha uu fadhiyo ibliis. waxa uu aada u xiiseeyaa oo uu soo dhoweeyaa ka yidhaahda ninkii hebel wax walba waan ka kharibay, isagii xaaskiisiina waan kala diray. kaasuu aada u jecel yahay. marka waxyaabaha had iyo jeer furiinka keena iyo furiinka laftiisaba laguma degdege, waa la warwareejiyaa, guurkana waa la dhiiriyaa. marka waxaad arkaysaa islaamku inuu maaragtay aada iyo aada ugu dadaalay shayga la yidhaahdo guurka. guurku waxyaabuu ka faa'iideynaya dee waxa ka mid a xaaraantiibuu hor joogsanayaayo bulsho kasta oo guurkeedu badan yahay xaaraantii iyo sinadu way yaraadaanoo baahidiibaa si xaqahoo xalaala loo daboolaya. marka inta aynu kolba ilaalino qoyska ayaynu qaranka muslimkaa ilaalinaynaa. haddaynu qoyska fududayno oo furiinka la fududeeyo, markaana waxaa dhacaya qarankii muslimku inuu xumaado. marka hadday tahay maamulka iyo hadday tahay dadweynaha iyo labada qof isqababa, waa in laxajeclo gaara la siiyaa qoyskii aada loo ilaaliyaa oo hareeraha la iska taagaa. intaasaan ayaan qadimi lahaa. ilaahay subxaana wa tacaala sheekh maxamed ha ku barakeeyo. talooyin muhiima oo loo baahan yahay buu sheekhu inala wadaagay. ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka u saaro. san la soconno xarunta guriga Samo
waa xarun u adeegta qoysaska hadday tahay kuwa raba inay qoys yagleelaan dhalinyarada rag iyo dumarba iyo hadday tahay qoysaska kale laftooda wacyigelintooda iyo dhiirigelintooda intaba caawa marti ayuu sheekhu u yahay waxaa jira su-aalo sheekhayna soo weydiiyeen dadka ku xidhan xaruntaasi su-aalahaasi waxay u badan yihiin su-aalo ku saabsan arrimaha qoyska kuwa doonaya inay qoys hadda abuuraan iyo kuwa doonaya qoysaskoodii hore inay ama khilaafaad jira ay xuluul iyo u helaan xal u helaan iyo hadday maaragtay kuwa raba inay qoysaskooda horumariyaan intaba su-aalahaas su-aasha koobaad saa'ilkeena soo weydiiyey wuxuu leeyahay waxaa jira qoysasku inay burburaan oo furiinku bato wakhtiyadan dambe maxaa la odhan karaa sabab bay u noqon kartaa burburka ku yimaada qoysaska su-aasha labaad wuxuu leeyahay ninkeena soo weydiiyey waxaa jira mararka qaar oo xaaska aad ku arki karta dhaqan aan wanaagsanayn oo aanad u bogin oo shareecada islaamka khilaafsan sida ugu wanaagsan loo bedeli karo oo dhaqan wanaagsan loogu abuuri kariyo jawi fiican guriga muxuu yahay su-aasha xigta wuxuu leeyahay saa'ilka soo qoray diintu maxay ka qabtaa waa ruux dumara saa ka muuqata in gabadha lagu qasbo guur oo aabaheedu ku qasbo la yidhaahdo maalan duco iyo habaar kala dooro oo nin aanay rabin lagu daro sheekh maxamed su-aasha hore horta furiinku sababo badan buu leeyahay marka bulshadeenna la eego sababahaasina waxay mudan yihiin in aada looga feejignaado cid waliba sababaha waxaa ka mida labada qof oo aan aqoon u lahayn xuquuqda ay isku leeyihiin ama waajibaadka oo qofka wixii uu leeyahayna xaq baa la ydhaha wixii isaga laga doonayna waajib baa la ydhaha inantiina ma taqaano inankiina ma yaqaano indhahana waa la isu geliyo way isguursadeen markaa midibaka kalu ku qaldamaya marka taladeennu waxa weeye si looga baxo khilaafka in la barto xuquuqda xaaska khilaafkaasi mararka qaarkood buu ka iman karaa dhinaca dabeecadda oo isagii baa dabeecad adag ama iyadii baa dabeecad adag oo dee dadkuna way kala duwan yihiin xagga dabeecadda oo ilaahay ma simin subxaanahu wa tacaala khilaafkaasi mararka qaarkood buu ka iman karaa dhinaca debadda qoyska wax ka baxsan sida maalan ehelkooda oo kale ama dadka la asxaabta ah ayaa soo faragelinaya markaasi ama iyadii ka dhex hadlayaan ama isagiiba ka dhex hadlayaan waxaynu uga jeednaa labadoodii ayaa mid ka mid a taladii lala yeelanaya oo lagala talinaya qoyskiisii ama gabadha ninkeedii waa la soo faragelinaya faragelintu hadday tahay in wax lagu tarayo oo la isu buslixayo waa khayr laakiin waa faragelin shara oo la leeyahy ninka sidaa isaga celi oo waxaa ku dhe oo waxaa ka qaad iyadiina la leeyahy gabadha sidaa ula dhaqan oo sidaa ku samee oo sidaa ku samee ama gabadha reerkoodii baa doonaya inay ooridan ninkani qabo xukumaan ama ninkiibaa reerkoodii uu doonaya inay isagii xukumaan oo gacanta lagu hayo oo kolba dhan loo jiheeyo marka faragelintaa ehelkii asxaabtuna sida xun loo faragelinayaana qoysku inuu burburo way keentaa waxyaabaha keena waxaa ka mida iyada oo dad khuraafaadlayaali ay soo gacan geliyaanoo waxaan la yidhaahda isku dirka iyo falka iyo sixirka iyo jimanka arrimahaasina way keeni karaan oo marka la arko dad isjeceloo isu roonoo isku wanaagsan faragelin noocaasa baa timaado dadkuna inta badan aanay aada u ogaaninoo dee qur-aankana ilaahay wuu ku xusay fayatacalamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawji wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidn illaah wayatacalamuuna maa yaduruhum walaa yanfacuhum waxay ka baranayaan buu ilahay yihi wax ay ku kala kaxayn karaan ninkiiyo xaaskiisa ayay oo markaa ilaahay haddii aanu qadarin waxba kuma dhibi karaan markaa waxaa la yidhahda tafriiq waa kala kaxayn waxbaa loo qabanaya ninkiiyo gabadhii baa kala yaacaya oo isnacaya marka iyada laftigeedu marka ay arkaan inay ku soo kordheen waxaan hore u jiri jirin waa inay culimada caamiliinta ee diintooda ku camal falaya sida fiican wax u daweeye la xidhiidhaa runtii asbaabta kuweelahaasaa ka mida waxaa ka mida balwadda oo raggiibaa mararka qaarkood halkuu xaaskii ka qabilaa jaad iyo balwad buu qabaya xaas u noqonaya marka xaqeedii buu dayacaya
wax badanna qoysaska waddanka dhexdiisa ama dabadaba aan idhaahnay qoysaska wax badani balwadaasay ku burburaan waxaa keeni karaa iyada oo qofku uu marmaro meelaan ku munaasib ahayn oo maala ninkiibaa had iyo jeer meelo tuhmaad leh buu marmaraya ama ooradiibaa ku warwareegaysa meelo tuhmaad leh markaasuu isagiibaa ka shakeeya ama iyadiibaa ka shakeeyeysa sidaana wuu ku burburaa qoysku waxaasoo dhan waa la iska ilaalinaya si qoysku inoogu jiro su-aashu waxayd sidee baan xaaskayga dhaqankeeda u sixi karaa waxaad u sixi kartaa inaad adigu tusaale noqoto oo dhaqankaaga aada wanaajiso oo ooridu markaa ay cusub tahay waa ninkeeda waxay ku aragto nin wanaagsan akhlaaq fiican afmacaan diinta ku dhaqmaya cibaadaysanaya hadduu yahay way raaci rabaayadiisay qaadan intaa cagsigeed hadduu sameeyana iyana way ka dari marka qofku had iyo jeer markuu doonayo qof inuu saxo waa inuu isagu tusaale wanaagsan noqdaa tusaale fiican waa inuu noqdaa tusaalaha fiican baa markaa iyaduna ay ku saxmi doontaa waxaad dhaqankeeda ku bedeli kartaa waanada sida qur-aanku ina barayo oo waxaa ugu fiican qofka qalbigiisa in la qabto la qanciyo sidaasaa lagu jahaynaya marka wixii xaq iyo sawaababaad ku qancinaysaa oo aad ku waaninaysaa faciduuhunna buu ilaahay ka bilaabay xaaska marka afgaran weydaan waaniya marka taasina waa mid aynu dee daliilka ka qaadanayno su-aasha saddexaad inanta ma lagu dirqii karaa ama ruuxa dumaraba guurka maya hadday gabarh tahay iyo hadday garoob tahayba inan iyo carmal midnaba laguma qasbi karo shayga la yidhaahdo guurka ogolaanshu waa lagama maarmaan inan baa u timi nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay leedahay aabbahay nin buu u guuriyey in adeerkii oo aanan doonayn fa jacala laha alkhiyaar ikhtiyaar buu siiya wuxu uhi haddaad doontana waad guursan haddaad doontana waad diidi sidaa daraaddeed dee ninkuna weligu kaalin buu leeyahy inanta aabbaheed kaalintiisu waxa weeyaan inuu isagu mar haddii inanti raalli noqotay uu sidaa ku caqadu ku meheriyo iyadana doorkeedu waxa weeye inay guurkana ogolaato iyo cidda loo guurinayo ilaan reer gabadh baa kaa raacda baa lihi xididku ku raaci maayo gabadhaa ku raacaysa tii waa inay safgarataanoo meeshii raalli noqosho waa inuu yimaado shurkad khayrla baa la samaynayaa marka sharci ahaan arrintaasina waa lagama maarmaana laguma dirqii karo ee waa inay raalli tahay wallahu aclam sheekh ilaahay subxana wa tacaala ka abaaliyo su-aaluhu maadaama xaruntii danaynaysay arrimaha qoyska iyo guurka iyo jacaylka ay u badan tahay su-aaluhu arrimahaasay u badan yihiin su-aalihii dhallinyaradu ay had iyo jeer soo qori jireen su-aalihii qoysaska runtii dhibaatooyinka jira xalka u noqonayay ama ay bulshadu dareemaysay marka saa'ilkan wuxuu leeyahay su-aashan soo qoray sheekh haddii ay dhacdo gabadha inuu aabbaheedii diido gabadhaanu isjeclaanay guur ka wada hadalnay baa aabbaheedii diiday isagoo fiirinaya qabiilka arrintaas maxaad igula talin lahayd anna gabadha waan jecelahay dee arrintii qabiilkuna waa xidhaysaa iyadoo jiraan dhibaato badan oo ka jirta xagga qabiilka oo soomaalidu ay arrintaasi ay aada ugu dhiban tahay saa'ilka kale wuxuu leeyahay sidee baan ku xulan karaa gabadh wanaagsan oo aanu qoys wada abuurno su-aasha saddexaad saa'ilka soo qoray ama weydiyaha soo qoray wuxuu leeyahay jacaylka guulaysta calaamadaha iyo astaamaha lagu yaqaanaa maxay tahay sheekh maxamed su-aashaa hore ee sheegaysa hadduu inanta waalidkeedii ama mas-uulkeedii diido guurka oo ciddii ay dooratay ee ay isjeclaadeen ee ay xulatay uu u diido maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa laha xaqu tadallum ama lahumaa labadoodiiba waxay leeyiin ninkii iyo ooridan isjeclaaday inay qaadiga u tagaanay ashkatoodaan mas-uulkiina loo yeedho inanta la weydiiyo sababta ugu diiday ama sabab garahoo sharciya bay noqon oo ninkaa la qancin wax doonaya ama sabab aan sharci ahayn bay noqon doontaayoo weligii iyo mas-uulka inantaa la qancin doonaa arrinku waa caynkaa waxa taa ka sii wanaagsan oo ka horeeya wakhti kastaba ha kugu qaadatee inaad isku daydo inanta ehelkeeda inaad ka dhammayso oo dee hareerahay qabanayaanoo way kula howlgelayaanoo reerkiibaa sii jiri karaya markaa inaad taa ku dadaasho oo ciddaad u mari kartee khayr laba aad u marto ayaa horta ka wanaagsan hadday taasi suroobi weydo kala hadhi weydaanna
qaadiga laakiin laba arrimood midna sax maaha in wadaad agtiisa u geysaan oo iska meheriyo aan qaadi ahayn iyo inaad isla baxsataan midna sharcigu ma ogola ama weligaa guurinaya hadduu diidana waa ka nebigu uhi asulطaanu waliyu man laa sulطaana lahu haddii ay inanta weli loo waayo waxaa guurinaya iyo haddii ay murmaan ay kala bixi waayaanba suldaan weliga mas-uulka ummadda qaadiga u fadhiya ayaa inanta guurinaya marka halkan dhallinyaradu ay yidhaahdaan waa la ii diiday la baxsadaan sax maaha taas waxna kuma ansaxayaan su-aashu waxay ahayd labaad sidee baan u xulan karaa ruux dumara markaan guursanayo nebigaa inooga jawaabay su-aashaa sala allahu calayhi wasalam ninka waxa lagu xulanayo ee gabadhu ay ku xulanayso iyo ninku wuxuu gabadha ku xulanayo gabadha markuu ka warramayo wuxuu waxa loogu xishaayo dadku ay ku doontaa dumarka 4 qoladeeda maalkeeda quruxdeeda iyo diinteeda fadfar bidaati diin ta diinta la kulli baan buul 4 arrimood waa lagu doortaa laakiin 4taba waa inay diini la socotaa marnaba diintu waa inaanay ka maqnaan taa diinta laan kuugu duceeyay buu nebigu leeyahay taa kulli baan ku guulayso nebigaa ku duceeyey sala allahu calayh wasalam qof nebi ku duceeyuunbaa dad ugu wanaagsan haddii inta kaleba ay leedoo diinta aanay lahayn damba way kuu dayici damba way kaaga dhaqaajin laakiin diintu waa dabar weyn oo qofka kuu dabraya inuu ku dulmiyo ama kugu xadgudbo intaba diintiisaa ka ilaalinayso qur-aankaa ka joojinayo xadiidkaa ka joojinayo ilaahay ayuu kaaga cabsanaya ninkiina waxa lagu dooranaya isagaa sheego waxa uu yihi nebigu idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh ragow ama ehelow ehelka inantoo markuu idin yimaadan inaad diintiisa iyo dhaqankiisa ka raaliti akhlaaqdiisa iyo diintiisa u guuriya si aan fitno iyo sino iyo balaayo u dhicin marka taana jawaabtaasaynu ka duulaynaayo haddii taa la waayo talada nebiga la weydaartay iyo tilmaantiisa turunturadu way badanaysa su-aasha saddexaad waxay ahayd jacaylka najaxa muxuu yahay jacaylka najaxa waxa weeye kaa ku salays kaa aynu ka soo warranay diinta ku salaysa ee qofka loo eegay aqoontiisa iyo akhlaaqdiisa iyo cibaadadiisa iyo dhaqankiisa wanaagsan loo eegay jacaylka wanaagsani waxa weeye naajixa ee jiraya kaa xuquuqdii iyo waajibaadkii la ilaaliyey jacaylka waaraya waxa weeye kaa laga ilaaliyey waxa aynu ka soo warranay sababaha u afuriinka ilaa waxa hadduu ku wanaagsan yahayoo balaayada iyo duufaanada laga ilaalin waayo wuu dumaa markaa jacaylka qiimaha badani waa kaas weeye jacaylku labada qof ay isjeclaanayaan ma aha inay hamadooda qura gutaan ama hunguri iyo raaxa isugu yimaadaan hanku intaa wuu ka wen yahay diintiiba iyo dadkii muslimiinta iyo dalkoodiiba camiraya dad wanaagsanoo iyaga ka farcamo oo u soo duceeya weeye hankooda diinta ilaahay bay dabiqayaan oo sunnadii nebiga ay oogayaan sala allahu calayh wasalam oo sharcigii bay ku dhaqmayaan marka kolka halkaasana laga bilaabo ee intaasi israacsan tahay jacaylka guulaystaa waa kaa wallahu aclam sheekh maxamed ilaahay ku barakeeyo wuxuu leeyahay saa'ilkani sheekh maxamed guurka faa'iidadiisu maxay tahay guur haddaan la imaado guursado maxaan ka faa'iidayaa su-aasha labaad wuxuu leeyahay saa'ilkayna soo weydiiyey muxuu yahay shukaansiga saxda ah ama haasaawaha saxda ah ee diintu ay ogoshahay iyo haasaawaha qaldan ee diintu aanay ogolayn su-aasha saddexaad saa'ilkayna soo weydiiyey wuxuu leeyahay haddii marka qaar waxa dhacda in labadii qof ee dhallinyarada ahaa ee sheeka ay u socotay in shaydaanku isu soo dhadhoweeyo kadibna xumaani meeshaa ka dhacdo kadibna gabadhii ay uur yeelato uu ku soo baxo gabadhiya uurkaa sida aan saxda ahayn ee xaaraanta ah meher ma qabanaya sheekh maxamed marka hore waa faa'iidada guurka maxaa faa'iido ku jira aad bay u badan yihin faa'iido diinta iyo mid duunyada ah iyo mid adduun iyo mid aakhiro iyo mid dad iyo mid duunyo faa'iidooyinka guurku aad bay u badan yihin faa'iidada koobaadba waxa weeye inaad diintaadii dhammaystiranayso qofka ilaahay oori wanaagsan uu siiyey buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam diintiisa qayb buu ka saaciday
oo ka kaaliyo ka xoojiyo qaybta kale ilaahay kaga boqo waaba nisfu diinba faa'iidooyinka waxa kamid ah inaad sunnihii nabiga ku taagantahay oo guurku waa sunnahayga buu nabigu faman raqiba can sunnatii falaysa minii qofka sunnahayga nacaa aniga iga mid maaha ilaahay baad adeecaysaa ka tala qaadanaysa rasuulkii baad adeecaysaa ku faray si kala hadaynu u dhigno waaba sunnadii noloshaba wa min kulli shayin khalaqnaa zawjayn lacalakum tadakaruun wax lagu cibro qaato wey noolaha wax waliba waa lamaanay buu ilaahay subxaana wa tacaala faa'iidooyinka waxaa ka mid a guurka inuu kaa ilaalinayo labada arrimooda ugu daran buu ku ilaalinaya waa ishaada iyo ibtaada qofka ishiisa xaaraan ka ilaaliya ibtiisana xumaan ka ilaaliya iyo cawrada jannada kaarhkeedaanu hayaabuu nebigu calayhi salaatu wasalaam anigaa u damaanad qaaday jannada waaba labada lagu halaagsamada qofku markuu hamadiisa iyo baahidiisa guto ee qofkiisii xalaashaha uu la nool yahay labada meeloodba waa asturnaanaya waaba labada laga ibtiloobay maanta ee adduunka in badan inkaari kaga dhacday faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah dee ballankan ilaahay baad helaysaayo dhaqaalahaba kuu kordhayaba ila ilaahay wuxuu uhi in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadli haddii ay fuqaro yihiin labada qof ay isguursanaya waxba aan ahayn ilaahay baa fadligiisa siin doona waa ballana leh markaad niyadaadu ay tahay aad ku asturnaatid oo diintaada ku ilaashatid ballankan ilaahay baad helaysa saa daraaddeed baa soomaalidu berigii hore waxay odhan jireen faqriga waa laga guursadaa haddii faqriga kugu dhaco bay idhahdeen iska guurso adigaaba iska badbadan oo iska barwaaqoobaya haa isku arsaaqad ma ihid markaad keligaa tahay iyo markaad 15 qof masruufayso 15 arsaaqadoodii baa lagu soo xambaarinaya marka dadka qaarkood oo yidhaahda maxaan dee siinayaa sax maaha faa'iidooyinka waxaa ka mid ah bulshada islaamku waa dariiqo ay ku wada xidhiidhaan siyaasadooda iyo ijtimaacooda iyo bulshadooda iyo qabaa'ilkooda dadka is wada haystaa markay xididaan ee xigaal iyo xidid isku darmo dee laba tollo midhan buu qofku noqonaya qofkii wuxuu leeyahay sodog iyo sodo uga dhigan aabba iyo hooyo marka laba aabbana wuu leeyahay laba hooyana wuu leeyahay laba seedi buu leeyahay laba walaal buu leeyahay marka tolkiisu wuu badbadan yahay bulshada isku faa'iido uma aha qofka keligii soconaya iyo qofka ehel leh ee aqal u dhisan yahay qofka la tirsado ee qaadhaanka iyo lagu xisaabtamo waa qoyska dee qof meel suka ah oo lugaynaya yaa soo helayaba meel u maray meel u deganyaba ma hayne ilaa ay sii wadeen fuqahada qaarkood ay yidhaahdeen almiskiinu man laa zawja lahu miskiin waxaa la yidhaha qofkan xaasba lahaynba miskiin ayuu yahay kan xaaska lehina wuxuun buu haystaa gundhig faa'iidooyinkooda caawa dhan haddaynu tirino aad bay u badan yihiin dee waxaba ka midaba sharciga oo uu dabiqayo ka sakow inay ka soo baxayaan awlaaddii ku ducayn lahayd adigoo adduunka ka tegey si kale haddii loo eego waaba cimrigaagiioo la kala jiiday oo muddo dheer baa lagu abtirsanaya oo reer hebel iyo reer heblaayo arrinku noqonaya markaa qofka aan guursan calafkaasoo dhan baa ka maqan ciddaan guursan allah u sakhira baynu leenahay shukaansiga xalaasha ah macnaheedu waxaan u fahmayaa guurdoonka xalaasha ah inuu yahay waxa weeye ka ku salaysan sharciga sharcigeennu marka hore si aan sina u imanin nin iyo gabadh kale ajnabi ah wuxuu u diiday istaabashadooda istaawashadooda iyo wada hadalkoodaba waayo waa wadooyinka sinada waa la xidhay laakiin marka guur la doonayo inay sarkaanna waa la ogol yahay inay wada hadlaanna waa la ogol yahay labadaba fii xuduud waana xad baana taa u yaallo in gaara buu ka arki karaa wejigiiyo gacmaha ah si uu qofkan quruxdiisa iyo jamaalkiisa u arko iyaduna way iska eegaysaa isaguna wuu iska eegayaa nebigaa sidaa faroo yidhi hallaa nadartahaa inantaad guursanaysa ma iska eegto waxaa la doonayaa laba qof oo isku qanca ma doonayno laba qof oo la isku qasbo ama la isu qariyo oo marka dambe soo kala booda waa ina labada qof ilaan midibaka kale dharkii uu gashanayo weeye ninku xaaska ayuu dhar u yahay asturaya iyaduna dhar asturaya u tahay qur-aankaa sheegay hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun dee ma naqaano lama yaqaano qof intuu bacadlaha iska tago wuxuuna iska soo xambaarta dhar laakiin mid waliba wuxuu idhaahdaa ma ila eg yahay talo quruxdiisu waa maxay may cajabiyey may asturaya ma ku xaragoon karaa taa dharkiiba caynkaas maxaad u malayn
qof dhan oo bani aadam oo noloshaada kugu lifaaqnaanaya markaa aan idhaahna ee guurdoonka xalaasha ah iyo wadahadalka xalaashi waa ka waxa xaaraana nin iyo gabadh aan weli isu mehersanayn oo dhexda is haysta isla caweynaya isla dalxiisaya isla cashaynaya sidii muraayadda saasun isu daawanaya labadan qof waa bani aadam hamad bay leeyihin shaydaanna waa saddexaynaya muddo markay sidaa isugu warwareegaan waxaa ka soo baxaya uun dee su-aasha dambe waxa ku jiro ah sinadii haddii sinadaasi timaadda iyo ceebtaasina dee inantii mustaqbalkeedii baa ka xumaaday iyo inankiiba dembina way ku dhaceen ceebna way ku dhaceen warwarkuna wuu ka badanaya xayaatudana way ka xumaanaysa aqal iyo ubad iyo oori iyo oday intuba kharibme inantii aqal ma haysato ubad markaa aabbalana ma haysato oday masruufo oo saygeediina ma hayso cidlaa lagaga tegaya idan markaa sababta uu sharcigu arrimaha albaabada xunxun u xidhay waa taa weeye su-aasha dambe waxay ahayd ama sagaalaad haddii ay dhacdo sino oo dadku waxaa loo diiday bay ku dhaceen iblis baa ka faa'iidaystay ninkii iyo gabadhiiba sinay ku dhaceen ma mehersamaysa ma mehersamaysa dadku ma mehersamaysaa un bayna weydiiyaane laakiin mushkilada intay leedahay baa mudan in la isweydiiyo iyo maxaa arrintaa lagaga gaashaaman karaa ilaa haddii balaayo laga warramayo balaayada daba la qabto male daaman la qabtay leedahay daamankaynu qabanaynaa waa maxay baa u baahan in laga fikiro sinada noocan ee soo noqnoqonaysa miyiga iyo magaalada iyo debadda iyo gudaha intaba ka dhacaysa dadkii la leeyahay inan baa ureysatay oo si xaaraan oo ureysatay meher la'aana arrintaa maxaynu kaga gaashaaman karnaa ilaa cidda ku baaba'aysa waa hablaheeni iyo walaalaheeni inan walow xumaato oo dee ummadda islaamka ka midii waa walaasha haddaad adigu xumaysayna way kaa go-an tahay oo kaa fogaan mayso markaa maxaa lagaga hortagaadaasi aad bay muhiim u tahay waxaa lagaga hortegayaa sharcigoo lagu dhaqmo sharcigaa dawada ah dembiga dawadiisu iyo ka hortagiisu labadaba waa sharciga ka hortagu waa sharcigoo la raaco dhibkaasi haddii uu dhacayna waa in ilaahay looga toobad keena subxaana wa tacaala oo albaabka toobaddu wuu furan yahay toobaddana waxaa ka mida inaanad waxaa dib u agmarin aad tidhaahda ilaahay oo mar dambe igu arki maysid halkaa ilaahay ballan la gasha subxaana wa tacaala culimada qayb ka mida waxay qabaan uurkaasi intuu jiro inaanay mehersamayn haddaanay uur leedahay dee cidday ku jirtaa ciddadeeda waxay ka baxaysaa markay umusho unbaa la meherin karaa qolyaha qaarkood waa banneeyaanoo waxay idhahdaan intay uur leedahay iyadoo markaduu uurku siniya waa la iska meherin karaa laakiin qowlkaa kalea daliilka u badan ilaahay baa wuxuu uhi wa ulaatu laxmaali ajalahunna an yadacna xamlahunna dumarka uurka leh waktiga ay cadadbaxayaan waa markay umulaan markaasumaana la meherin karaa wallahu aclam sheekh maxamed ilaahay subxaana wa tacaala ka abaaliyo su-aalaha sida ka muuqatay su-aalo xagga dhallinyarada badan bay ahaayeen laakiin odayaasha laftooda malaayay qudhooda jacaylku waa ku dhacaaye odayaal doonaya inay labeeyaan ama saddexeeyaan baad mooddaa su-aalahan inay ka soo socdaan saa'ilkan wuxuu leeyahy waxaan rabaa inaan xaaskii la guursado iyadiina way maseyraysaayoo hinaasaheeda cirka maraya labada arrimood sidee sheekh isku waafajiya maxaad igula talin lahayd saa'ilkan kale wuxuu leeyahay haddii markaan rabo inaan xaaska la guursado aan u sheego markay weydiisay xaas ma leedahay oo aan maya ku idhaahdo arrintaas diinta islaamku iyadana maxay ka qabtaa su-aasha ugu dambaysa aynu barnaamijkaa su-aalaha kusoo gabagabeynayna wuxuu leeyahy saa'ilkani sheekh waxaan rabaa haddii aan xaaskii furo oo aanu kala tagno kadibna aan doonayo inaan soo ceshado waxa layga baahanya inaan weligeedii iyo ciddii mas-uulka la xidhiidho mise aanan cidna la xidhiidhin baan raajactu odhan karaa sheekh maxamed su-aashaa hore ee waxaan doonaya inaan xaaskii la guursado waana hinaasaysaa maxaan yeelaa marka hore horta waxaa xusid mudan guurka labaad faralna maaha sunnana maaha waa eexa guure abaar guur maaha waa luqaddii reer miyiga reerku marna wuu guuraayo abaar buu ka guuraa oo dee xoolaha kaga dhimanaya halka marna iyadoo dee uu iskaba ladan yahay meeshuna doog iska tahay ayaa la eexa guuraa waxaa la yidhaahdaa halkaa kale balaan iyadana halkanna waa cosab laakiin halkaa kale cosabka ah iyadana aanu guurno ama halka roobkii baaba ku batay halkaasaa yaro qalalana aan tagno markaa waa wax kororsi guurka hore guurka labaad
iyo ka saddexaad iyo afraad waxbaad soo kordhinaysa haddii aad shay soo kordhinaysana waxa mudan dee xaasilkii hore inaanu kala kicin midhihii hore ee aada haysay ubadkii iyo ooridii iyo aqalkii hore inaanu xumaanin baa muhiima sidaa daraaddeed baa ilaahay subxaana wa tacaala markuu qur'aanka arrintan ka warramayo shardi buu ku xidhay shardigaasoo ah cadaalad haddii aad ka cabsataan inaad cadaalad samaysaan middiinna un ku egaada fain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida meesha haddii cabsi ay timaado mid keliya ku gaabsada muxuu qof ka cabsanayaa inuu cadaalad samayn kari waayo maalan qofku naftiisa beenuma sheego marka run ahaan loogu tago ee wuu og yahay wuxuu yahay caatifadiisa dhaqaalihiisa dabeecaddiisa waxoo dhan wuu yaqaanaa marka kolka hore uu ismiisaamayaayo wuxuu leeyahy dee meeshii mar haddii la yidhi haddii cabsateen cabsi hadday timaado waa dagaale tolo hawshaa ma ka bixi karaysaa maya wallahi inaan ka bixi karayn nin musaalima baa tahay oo xasaradaha iyo waxaa kari karayn dee haddaba iska daa sidaasaa horta ay tahay in loo fahmo marka isku mid maaha qofka dee xaaskiisii iyo reerkiisii hore u jooga iyo qofka aan waxbaba lahayn isku mid maaha marka waa in lagu xisaabtamaayo sidaa qur-aanku ina barayo inuu qofkani labadii reer isku wadayo kii hore aanu burburayn oonu xumaanayn ubadkii ooridii aanay kharaabayn taasi markaa waa mid runtii xusid mudan waxyaabaha markaa muhiimkaa waxaa ka mid ah dee haddii aada hawshan labaad gelayso waa inaad taqaanaa sidaad u maaraynayso sidaad u maaraynaysa aad qofkii isaga ahaa ilaan qofkan markuu hinaasayo wuu ku jecel yahay waa qof diidan in loogu yimaado qofkii uu jeclaa bal maxaad ku qancinaysaa waaye qofkani meel kale uma socdee wuxuu kuugu hinaasaya adigu ku jecel yahay wuxuu ku leeyahay jacaylka aan kuu qabo ma doonayo in laygu kaa yimaado bal waayo adigu wixii aad ku qancin lahayd baa lagaa doonayaa inaanad ka tegin ee aad jeceshahay oo aad garab taagan tahay oo aad waxtar ula taagan tahay diin iyo dabeecad iyo duunyaba ta waa inaad qancisaayoo markaaad maslaxataa reerkaagii horena hagaajisataa ta aynu ku waaninaynaa waa taa weeye walaalaheenna qaarkood ayaa inta ay kolka intay dhaqdhaqaaq sameeyaan xejin kari waaya markay dhamaci ku baxdo kadib markaasuu reerkii dambe furaa ama kii horu furaa furiinkaasina waxa laga cararayo marka waxaynu leenahay sidaad isugu wadi lahayd ilaan durbaanin qaatay ilaaq dalbeed bay yidhaahdeen soomaalidu nin dagaal tegayaana balaankii waa inu sii dhigaado saanadii military iyo logisticii waa inu la diyaariyahay wuxuu ku kala dejin lahaa marka iyadoo gabadhii aynaan lahayn ninkii ha lagu kaco waxaa laga qaada haddana ninba xigmaddiisa qof iyo xigmaddii marka xigmad waa laga maarmaan reerkii hore inaanu laga dhumin inaanu naga xumaanin waa laga maarmaan waxa aad soo kordhinaysiiyo wixii hore waa inaad iswaafajisaa arrinku waa talamu sharci ahaan dee waa la garanaya xukunku wuxuu yahay laakiin taladu ina weydiiyey walaalkani su-aasha kale waxa ay ahayd ragga qaarkood baa dee fulaynimadu waxa ay ku kaliftaa wallahi inaan waxbaba qabinba waxbaba malihiba aimada qaarkood furiin bay ku sheegaan laakiin qowlka raajixa waxa weeye inuu yidhaahdo xaaskii miyaad furtay haa waan furay hadduu yidhahdo bay ka furmaysa su-aasha kale waxa ay ahayd sidee baan xaaskii u soo ceshan karaa ma haddii aan soo ceshanayo ma in weligeedii ila joogaabaa ma inaan markhaatiyaal u sameeyaabaa ma inay xaaska la soo ceshanaya ogoshahaybaa maxaa nidaamka soo ceshiga waa su-aal runtii muhiimaddeeda leh dadka qaarkood baa iyagoon waxba soo ceshanin mooda inay wax soo ceshadeen qaarkoodna iyagoo soo ceshaday ayay weli u qabaan inaanay soo ceshanin soo ceshigu shuruuduu leeya aadaab xaaskii aad soo ceshanayso shuruudiisa waxa kow ka ah inaanay horta cadad bixin dumarka midiba siba u ciddo tirsataa mid baa dhiiga ku ciddo saddex dhiig midna 3 bilood midna uurka midiba siba ku ciddo tirsataa marka intaanay cadad bixin baad fursadda haysataa shardiga labaad waxa weeye inaan dalqaduhu dhammaanin oo dee haddii dalqadihii dhammaadeen ma soo ceshan karaysid arrinta saddexaadna waxa weeye in aanay kaa iibsanin dalqadda iyo furiinka
haddii furiinka ay kaa iibsato oo meherkii ay kaa dayso aduguna sidaa aad ku furtay soo ceshi ma jiro ila wuu faa'iido beelayaa khulucaas maxay wax ka iibsanaysa haddii la soo ceshanayo raali noqoshadeedunbaa dib loogu meherin karaa arrinta afraadna waxa weeye labada qof inay is arkeen ay guri galeen haddii intuu meheriyo isagoo dabadda jooga iyana gudaha joogto aanu weli la aqalgelin oo furiinuu dhaco iyagoon isaragba dee ciddaba ma jirto intaba qur-aankaasaa inoogu cadcadeeyo inoogu saafsaafay afartaa xaalo markaanay ahayn habkaad u soo ceshanaysaa waxa weeyaan qowl iyo ficil labadaba way ku sugnaata inaad tidhaahda xaaskayga heblaaye hebel guurkaygii horaan ku soo ceshaday qowlkaa way ku ansaxaysa culimada qayb ka midina waxay leeyihiin haddii isaga oo niyeysan inuu soo ceshado xaaskiisii oon cadad bixin galmo uu sameeyo iyadana ficilkaasi wuxuu sheegayaa inuu soo ceshaday waxba laakiin shardi uma aha inuu waalidku og yahay iyo inay ruuxa dumarka ay og tahay midna shardi ma aha iyadoo aan ogeyna wuu soo ceshan karaa iyadoo oo aan markhaatiyo jirina wuu soo ceshan karaa iyadoo aan waalidkeedu ogeyna wuu soo ceshan karaa ila waa xaaskiisii mar hadduu soo ceshan karayo hadduu caawa dhinto way dhaxlaysa isaguna wuu dhaxlayaa waana tan qur-aanku idhaha kala fogaanina si meel dhow laysaga tiigsan karo marka nidaamka soo ceshigu waa caynkaa weeye wayse iska wanaagsan tahay khilaafka iyo shakigaana yaraysaa inuu ooridiisii u sheego owdhaa heblaayoy waan ku soo ceshaday weliba inay ku heshiiyaan baa kasii wanaagsan si aanu karbaash ugu noqon sidoo kale inuu markhaatiyaal u sameeyaana waa sunne faral maaha waa sunne inuu ehelkeedii ogeysiiyaana waa fiicanta waxaasoo dhammi shakigii unbay ka saarayaan meesha wallahu aclam sheekh maxamed aad baad umahadsan tahay ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaaliyo sida wanaagsan ee dhallinyaradii iyo dadweynihii guud ahaan barnaamijka la socday aada ugu faahfaahisay saynu hore u sheegnay waxaynu caawa marti u ahayn oo sheekhu marti u ahaa xarunta Guryasamo oo u howlan ama u taagan inay dhisaan dhiirigeliyaan guryaha iyo qoysaska islaamka ugu dambeyn sheekh maxamed dhallinyaradaas caawa kusoo marti qaaday ee barnaamijkaas u taagan maxaad tala siin lahayd ama dhiirigelin taladu waxa weeyaan tii uu ka xanaaqayo shaydaanka iyo ibliisku oo in reer la dhiso weeye arrintani waana wax aada u weyn waxyaabaha ilaahay loogu dhowaanayo siiba markay niyad wanaagsan iyo dal iyo diin iyo dad in la dhiso niyadaasi markay ku jirta daacadnimadaasina aad bay usii wanaagsanta waayo qoys kasta oo aad dhisto oo arrin aad ku darsato ama aqoon ama adduun iyo wakti waxa aad ka helaysaa ajrigeeda ayaad ka helaysaa taariikh wanaagsanna way kuu tahay cinda allaahi wa cinda annaas waxyaabaha habboon in wax lagu bixiyana meelaha ugu wanaagsan weeye dee qur'aankaaba ilaahay inagu faro wuxu uhi waankixu alayaama minkum u guuriya alayaama waa dadka aan xaaska lahayn hadduu nin yahay iyo hadduu gabarh yahayba marka amar baaba inagu dhacay amarku wuxuu ku jahaysan yahay madaxda iyo maalqabeenka iyo culimada iyo aqoon-yahanka iyo ehelka iyo asxaabta intaasoo dhan oo dhallinyarada ag jooga iyo dadkaan xaaska lahayn ayuu amarku ku jahaysan yahay qof waliba kaalintiisuu qaadanaya lagumana khasaaro marka dad loo guuriyo dee dad baa soo baxa waana waxyaabaha aynu kaga hortegayno safaaxa iyo sinada waxaan la idhaahdo oo foolxumo maanta caalamka ku ah dalalka islaamku sida macruufka ah way ka sina yar yihiin dalalka gaalada way ka guur badan yihiin maadaama ay ka guur badan yihiin waana ka cudurro yar yihiin maadaama ay ka guur badan yihiin marka arrintaasi in la dhiirigeliyo oo qolada had iyo jeer maalka haystaana qaybtooda ay ku bixiyaan dadkii arrin liina istaraatiijiyadda ay degaan da'yartuna ama dhallinyaraduna inay ka ilaaliyaan dheeldheelka oo qofku isagoon guurdoon ahayn waa inaanu hawshan isu soo taagin hadduu wiil yahay iyo hadduu gabarh yahayba waa inuu la soo xidhiidhaa barnaamijkan ka soo qayb galaa qof run sheegaya uun wax lagu dheeldheelo wuu ka wen yahay qoyska iyo nidaamkiisu marka ilaahay baynu ugu dhowaanaynaa subxaana wa tacaala ummaddeennana waynu ku dhisaynaa taariikh wanaagsanna waynu ku helaynaa iyo ajri marka waa kaalin aada u fiican oo ay tahay dhallinyaradu inay isu taagaan iyo dadweynuhuba sheekh maxamed aad baad umahadsantahay ilahi subxana wa taala ka abaaliyo
waxay la socoteen barnaamij gaara oo aynu ku eegeynay arrimaha qoyska waxaynu u mahadnaqaynaa sheekha barnaamijka fadiilatu sheekh maxamed sheekh cumar diriir iyo howlwadanada barnaamijka iyo xarunta guryasamo oo barnaamijku caawa marti u ahaa oo marti gelisay iyo guud ahaan dadweynaha kala jooga daafaha dunyada ee la socday waxaanu idinkaga tegaynaa intaanu barnaamijkan mid lamida isugu iman doono wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu